بنك قيامة حتى وكل تجيسا وكل تجيسا بنك قيامة لما كان مسلم أخيارته أكوسو لوك دوبانين رئيس الوزراء حتى وحكوه بتد سنة لقى جوجا عرنت أيضا سنة وحي كلمة وابريو سنة لقى جوجا محاد وديه ويسي سان hooyo qaali guhaad oo u warantay saxaafadda ayaa si adag u diiday hadalkii ka soo yeeray Fahad Yaasiin ee ahaa inay Ikraan Tahliil dileen ra'iisul wasaare Rooble iyo xildhibaan Mahad Maxamed Salaad iyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaala waxaana ka mid ahaa hadaladii maamo qaali guhaad falaar gilgilisha kaaga ma harto Ikraan waxay maqan tahay June waa wajeer waay marka intaasay maqan tahay intaas dhibaatadii taalay iyo iska daba socodkii iyo oohinteedii iyo dhibaatadeedii wuu u jeeday qof islaam ahayo quraana lay barayo leeyahay hadduu yahay muxuu uga damqa waayay muxuu u hadli waayay meeshaas hadda nabad sugiddu madax ka ahaa nisoo madax ka ahaa telefoon waa naga qabo waayay laba bari ka bacdigii waa na soo wici waayay waa nala hadli waayay intaas aniga baraha bulshada ka qaylinayo marqaati ka tihiin ummadda Soomaaliyeed ad marqaati ka tihiin sidoo kale maamo qaali guhaad waxay sheegtay in Fahad Yaasiin ay hore ula kulantay oo u sheegay in ay Ikraan Tahliil dileen al-shabaab oo hayo raad oo ay ka warsugto laba bari waxayna intaas ku dartay inuu kadib lambarka ka qaban waayay waana cadeyn kale oo xoogan Fahad Yaasiin maalintii gabadhu ay maqan tahay 18 bari baan xafiiskiisa ugu tagay wuxuu yiri gabadhii waxay ku maqan tahay dhinaca shabaab ay ku maqan tahay saasa xogta ku helnay marka laba bari iga warsugo maamo waxa ila socotay aqayaar nabadoono ila socday aniga kaligay ma ahayn marqaati ay leedahay 18 bari ay Ikraan Tahliil ay maqneed maalinta ayada ah oo xafiiskiisa ugu tagayno marka maanta inuu geedaha uu madaxa ku soo qabsado ma aha falaarida Soomaali waxay ku maamaaday falaaru kaaga ma harto gilgilasho sidoo kale maamo qaali guhaad waxay fariin u dirtay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ka dalbatay cadaalad madaxweyne mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ku leeyahay cadaalad ummadda Soomaaliyeed kaaga baahan tahay yay dhicintii dhacday gabood falkii nagu dhacay يوم كل عن أمة الصوماليات ومحمد عبد الله فرماجو يحلف ذي أي قصة ما يسوي أمة الصوماليات صلى على النبي ميان موادن أهين أنك ميان موادن أهين يكون عن مدحوين حسن شيخ محمود وأمة الصوماليات وعدالة فل قبر يرمى أنت بلوعله حتى يقف صار شيء سو استاك هذا المدحوين أو عدالة فل كيف كتبنا يسو لا فريسو ويدي ورنا أنا كنقول تاجر ما له والبوانا لو جلجلا لبعتنا هاي ستة مدحوين ومد الصومالية العدالة ذي كارتا كيس كان محكمة وإنا صدق أفرتت باريس هفن أو هبايسن لقصة مايو أو وحي هور أي كبنان كيين أو محن كورا كيس كان لاحظ صار أي كبنانين خبراء جوبتو خبراء حتى أجانب كجروا وإلا لقصة درو وإن سفي عن لابار أرنتان مدحوين حسن شيقو أرنتان ليه المها نفنا ولا يقم مقن أنيقا نفنا ولا يقم مقن مركو وحان كاعد صنايا مدحوين حسن شيق محمود وحان كاعد صنايا أرنتان إنا تصدق دقا وقصوا جوابته صدق دقا إنا هو الله وقبته ومحكمة دا سرع إيه محكمة دا عيد ماذا قلب كسيدة إيه مدى قبلك انت بدعوذ واجلتا بليس وحان كاعد صنايا أمد الصومالية وحي كاربتا عدالة دي كاربتا محمد عبد الله فرماجو وحي وسمي أمد يكون عن مع المدحوينة وعدالة دي عنق تيارات وهر استاغ ومدحوينة نما ونقفيرين ومدحوينة هذه ومدحوينة هاني وياه وفيرين الصومالي نما وفيرين وإسلام نما فيرين وبالآدم نما فيرين صلى على النبي نبان نجار ومد الصومالي هذا ولا علينا وإن شاء الله نقرب تاجنا نقرب استاج بليس نقرب استاج وأرنتا وحكنا وحكرت الصومالي هذا الدنيا الدافئة هذا الجو لا يراجروا وحاجروا ضد محنكو داعي أو وحكستو كلبارو أو نبات هذا كلبحين كراجروا صلى عليه
انت ساوغو بحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدالة ده شقيسو صومالي نمضى شقيسو